بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا برنامجكeenii aynu kaga warbixinaynay istiraatiijiyada iyo qaybaheeda iyo muhiimadda ay u leedahay bulshada ama waxa ay ku soo kordhinayso saan ula wadaagno dadka intiisa kale istiraatiijiyadu waxaan ku soo qaadanay waxay tahay taariikhdeeda iyo qodobo kale oo badan ba labadii xalqadood ee inaga horeeyay xalqadii hore haddaan idin yara xasuusiyo waxaan ku soo qaadanay qaybaha istiraatiijiyadu leedahay maamulka istiraatiijiyada iyo maraaxiisha umro qaybtan maanta waxaan ku soo qaadan doonaa waxa loo yaqaano furayaasha ama waxyaalaha ay tahay inaad og tahay si aad u lahaato maamul istiraatiijiyadeed oo wanaagsan laba waxaan ku soo qaadan doonaa waxa loo yaqaano istiraatiijiyada qofeed ama personal strategy iyo waxa aynu maanta ku soo gabagabayn doonaa qodobka ugu dambeeya ku soo gabagabayn doonaa wuxuu noqon doonaa astaamaha iyo waxa looga baahan yahay ama waxa ay ka tarayso inaad lahaato personal strategy haddii aan ku bilaabo waxyaalaha inoo sahlaya inaynu lahaano hab maamul istiraatiijiyadeed oo aynu hadafkii aynu u dejinay aan ku gaadhno waxa ka mid ah inaad maanka ku hayso competitive advantage waxa la yiraahdo competitive advantage waxa weeye sidii aad uga horeyn lahayd ama aad uga guuleysan lahayd dadka tartamayaasha kula ah aad isku fiilka tihiin waxa la yiraahdaa inaad ka guuleysato tartamayaashaada ama cidda aad isku fiilka tihiin waxa u dhacdaa laba siyood kow inaad lower cost ka isticmaasho factorka la yiraahdo oo ah inaad qiimaha yareyso waxaanu ka wadnaa dadka ama tartamayaasha adiga kula tartamaya shirkadku waxa ay leeyihiin qiime u go'an oo ay shayga siiyaan shaygaasi waxaad kaga mid noqon kartaan tayada waxaad kaga qiimo noqon kartaan shaqada uu qabanayo laakiinse waxaad adigu bedelaysaa qiimaha uu suuqa ka joogo ama tartamayaashaadu siinayaan inaad hoos uga dhigto oo wax intaa ka yar aad siiso waxay keentaa inay macaamiishu adiga kugu soo hirtaan iyagoo eegaya lacagta qodobka labaad ee loo dhigi karaa waxa weeye inaad si cad u qayaxdo adeegaaga ama productiga waxa aad qabanayso iyo qiimaha uu qofku ku soo kordhinayo taasna waxa si weyn uga qayb qaatay baa la yiraahdaa customer care-kaaga inuu qofku si wacan u yaqaano waxaan uu iibinayo ama waxaan uu qofkan u qabanayo adeeg ah talabaad waxay tahay inaynu haysano dad strategist ah maxaynu ka wadnaa strategist waxaanu ka wadnaa cid walba oo gacanta ku haysa ama cid walba oo go'aanka ugu dambaysa leh istiraatiijiyada qabashadeeda iyo hirgelinteeda waxay noqon kartaa maamul waxay noqon kartaa madaxweyne waxay noqon kartaa cidda shirkaddan boardka u ah in uu yahay qof strategist ah oo barnaamijkan iyo waxaan uu rabo inuu gaaro ama shirkadiisu rabto inay gaadho qof ay ka go'an tahay waxay kale tahay inaan maanka ku hayno inaad taqaan hadafkaaga iyo meesha aad rabto inaad gaadho aragti waadu waa inay caddahay oo aad rabto inaad bulshada la wadaagto sidaad u gaari lahayd laftirkeeda waa inaad taqaan waxa kaloo iyaduna muhiim ah in nidaamkaaga iyo waxyaalaha ay tahay in la raaco si aad u gaadho ahdaaftaada iyo waxaad degsatay waa inaad maamul adag leedahay iyo procedure guideline waxaas oo dhan waa inaad leedahay haddii aynu u gudubno qodobka labaad oo ah qodobka aynu ka hadlayno maanta waxa uu noqon doonaa waxa loo yaqaano personal strategy ama istiraatiijiyada uu qof samaysto si uu u gaaro ahdaaf uu isagu dejistay waxa la yiraahdaa personal strategy-gu waa waxa ay u baahan yihiin dadka maamula ama gacanta ku haya masiir shirkadeed waxay ka caawisaa inuu noqdo qof wacyiga iyo waxa markaa jira la socda isla mar ahaantaana horumariya naftiisa oo guulo badan ka gaara hayaankiisa nololeed waxa la yiraahdaa personal strategy-gu waxay leedahay astaamaha waxa ugu horeeya inay qofka ka waranto si qoto dheer dhan walba marka laga eego siday uga warantaa waxay ka warantaa bay yiraahdaan heerkiisa waxbarasho halkuu marayaa halkuu qabaa inuu gaadho muxuu higsanayaa waa qof maxay doonaya inuu noqdo taasna marka loo eego shirkadda ama businesska uu qofkaas ka shaqeynaya waxay u sahashaa inuu qof hal abuur iyo qof raba inuu noloshiisa horumariya uu iyaga la shaqeynayo
waxaa la yidhahdaa waxay kale ka warramaysaa socialka bulshadiisa iyo qofka maxaa uga qorshaysan bulshadu way kala duwan tahay. Bulshadu waxaa jirta in adiga hoos ku dhigaysa, waxaa jirta in adiga kor kuu qaadaysa, cidda uu ku xidhan yahay iyo waxaasoo dhan bay ka warramaysaa. waxay kaloo ka warramaysaa inuu qofka qorshe uga yaalo dhaqaalihiisa maaliyadeed shaqsiyankiisa. waxay kaloo ka warramaysaa qofka disciplinkiisa ama sida uu u ilaaliyo waqtigiisa, sida uu u ilaaliyo hawlihiisa, sida ay tahay inuu u fuliyo wixii loo diray iyo waxa uu doonaya inuu qabsado. waxay kaloo ka warramaysaa waa la yidhaahdaa astaamaha ama waxa loo yaqaano personal strategy, inuu qofku isu miisaamo waxa la yidhaahdo left and right brainka oo ah intelligence iyo emotionskiisa inay noqdaan wax isla socda. waxay kale ka warramaysaa oo ah qodobka aynu maanta kusoo gabagabayn doono. waxay ka caawinaysaa personal strategy inuu ahaado qofku qof teamwork oo cid walba oo hawlwadeennada ka mid ah ama shirkadda uu jooga ay wada shaqaynayaan, isu laab xaaran yihiin. halkaas bay noogu ekaan doontaa xalqadeena maanta. tan iyo intaan xalqada dambe isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi.